iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dadka ku nool degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ay aad u hadalhayeen dhismaha darbi cusub oo dowladda Kenya ka dhisanayso xuduudda Soomaaliya meel u dhow degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado. Arintaas oo maalmihii ugu dambeeyay muran weyn dhalisay isla markaana dadka degmada Balad Xaawo ku nool ee qayladaan ka muujiyeen in laga soo gaaro dhismaha darbigan cusub ee dowladda Kenya ka dhisanayso. Guddiga xuduudaha madax bannaan ee dalka ayaa maantay Muqdisho kulan ay ku yeesheen waxay aad uga soo horjeesteen darbiga ay ka dhisayso dowladda Kenya iyagoo baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Xogayaha guddiga xuduudaha madax bannaan ee dalka Liibaan Cabdi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland looga baahan yahay in la taageero shacabka Balad Xaawo isla markaana la baajiyo dhismaha darbigaas. in la joojiyo dhismaha darbiga ee dowladda Kenya ka wado deegaanka Balad Xaawo. labo in labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya ka gaaraan xal siyaasadeed arinta soo noqotay ee ka taagan degmada Balad Xaawo. qodobka saddexaad oo ah in la ilaaliyo hantida dadweynaha ee labada dhinac ka jirta. qodobka afraad sidoo kale wuxuu dhigayaa in la dhowro xasiloonida wada noolaanshaha iyo isu socodka deris wanaagga dadka deegaanka ah. ugu dambeyntiina guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ee federaalka wuxuu mar saddexaad soo jeedinayaa in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland xil iska saaraan xal u helidda xaaladda soo noqotay ee ka taagan deegaanka Balad Xaawo. wabillahi tawfiiq. ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga xuduudaha madax bannaan ee dalka Khaliif Cabdikariim Maxamed oo isna dhankiisa hadlayna waxa uu yiri dowladda Soomaaliya hadii wadankeeda dowlad waa sababtoo ah maxay ka qaban kartaa hadii la yiraahdo dowladiyada dowlad waa sharciya taamay haysataa marka iyada laga rabaa doorkeed inay ka soo baxdo sababtoo ah dowlad weeye mas'uuliyad bay qaaday mas'uuliyadaasna wax kasta macnaha oo markaas mashaakil imaada iyada xalin karta marka qaab dowladnimo iyo in wax xalinaysa xiriir bay sameeyeen qaab kasta oo xalin karta iyada marka iyada on kulli laga rabaa waa in xalin karta dowladda anaga ma aaminsanin dowladdeena inay arintaas xalin karin inahaas in ka weyn bay xalisay haddana inay xalisay diyaar u tahay marka anaga dowladdeena hadda tabardari oo intaas ay la xalin weyda kuma tuhsanin marka waxa uu jiro mashquuliyad iyo asaas oo iska jiri kara marka howlaha in la kala qaado marka dadka la qaybiyo waxa uu u baahan yahay nin kasta marka howl meel ka qabta laakiin anaga awood dari intaas leeg dowladdeena kuma ogin. Cabdikariim Maxamuud Sideen warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland magaalada Muqdisho.